eedaysanaha waxaa lagu eedeeyey inuu maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa maanta xukuno kala duwan oo isugu jira dil iyo xabsi ku riday dad lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin kooxaha Al-Shabaab iyo Daesh ayna falal isugu jira dilal iyo qaraxyo ka geysteen gudaha Puntland waxaana eedeysanayaasha ka mid ahaa rag lagu eedeeyay dilkii maareeyihii dekedda Boosaaso Paul Antonio Formosa oo ahaa wakiilkii shirkadda DP World ee Boosaaso. waxay waday maxkamaddu ciidamada qalabka sida ayaamahan kiisaskaasoo isugu jiray dadkii dilalka iyo qaraxyada iyo waxyaabaha caynkaasa ka geysan jiray magaalada Boosaaso oo uu ka mid yahay dilkii maareeyihii dekedda Paul Antonio Farmos iyo dadkii kale oo dekedda lagu dhaawacay dad kale oo fara badan oo lagu dilay magaalada waxay u fariisatay eedii loo haystay Mahad Xasan Xuseen oo magaciisa xarakiga loo yaqaan Jacfar waa ina Naciimo Buule ku dhashay Afgooye eedaysanuhu wuxuu maxkamadda horteeda qiraal kaga bixiyay inuu yahay ninkii soo dhaweeyay gacan ku dhiiglihii dilay maareeyihii dekedda Boosaaso Cabdullaahi Ibraahim oo magacyadiisa xarakiga ah ahaayeen Qaasin iyo Xasan sidoo kale wuxuu qirtay eedaysanuhu inuu gacan ku dhiiglaha ku hayay gurigiisa 20 cisho inuu u soo qaaday labada kaar isla markaana bastoolada wax lagu dilay isagu hayay sidaa daraadeed maxkamaddu Mahad waxay ku xukuntay dil toogasho iyadoo u cuskatay xeer lambar 10 qodobkiisa 2 farqada 1 waxaa ka furan bil racfaan xidigle Maxamuud Axmed Maxamed Sheekay oo ka tirsan ciidanka BMBF eedaysanaha waxaa lagu eedeeyay inuu bastoolada lagu dilay maareeyaha dekedda Boosaaso uu geliyay dekedda isla markaana uu ahaa hubiyihii dhimashada maareeyaha eedaysanuhu wuxuu inkiray inuu geliyay bastoolada iyo inuu joogay meesha dilku ka dhacay iyo inuu tagay isbitaalka waxay xeer ilaalintu hor keentay maxkamadda 9 markhaati dhaar kadib waxay caddeeyeen inuu goobjoog ahaa xilliga weerarku ka dhacayay uu sitayna qori iyo tuutay isla markaana uu isbitaalka tagay markii la geeyay meydka iyo dhaawaca wayna ku qanacday maxkamaddu waxayna ku xukuntay Sheekeeye dil toogasho waxay u cuskatay xeer lambar 10 qodobka 2 farqadiisa 1 waxaa ka furan bil racfaan waxay u fariisatay eedii loo haystay aadan isaaq aadan jiis waa ina Maryan Sheekh 37 jir ku dhashay ufurow haddaba markay maxkamaddu u weyday wax caddayn dambi ah maxkamaddu waxay u celisay xorriyadiisa eedda loo haystay eedaysanayaasha magacyadoodu hoos ku qoran yihiin kuwaas oo loo haystay inay ahaayeen amniyaadkii dadka ku leyn jiray magaalada Boosaaso kana qayb qaatay dilkii maareeyihii dekedda Boosaaso Paul Antonio Farmos sidoo kalena laayay dad badan oo reer Puntland ah kuwaas oo maxkamaddu ku qanacday eedooda iyo cadeymaha kana maqan hadeer goobta waxayna maxkamaddu ku xukuntay nin walba oo kamida dil toogasho maqanayaashaas waxaa kamida Saciid Maxamed Aadan Cali waa maqane dil toogasho Cabdi Yare maqane dil toogasho Bashiir Cadaa maqane dil toogasho Daawud maqane dil toogasho Cabdullaahi Axmed Garaad Calasow maqane dil toogasho Liibaan Ibraahim Cabdi maqane dil toogasho Sakariye maqane dil toogasho
xukumanayaasha waxaa lagu fulinayaa mid kasta marka la qabto. goobta uu xukunku ka dhacay waxaa goobjoog ka ahaa saraakiisha laamaha amniga, xeer ilaalinta iyo garsoorayaal sare. tirada maleeshiyaadka la xukumay ayaa ahaa 10 ruux oo laamaha amnigu ay ka soo qabteen meelo kala duwan. ciidamada ayaa sidoo kale waxyaabaha qarxa ka soo qabtay xaafadda buuraha ee dhanka bari ee magaalada Boosaaso oo ay degan yihiin dadka barakacayaashu. Puntland ayaa dagaal kula jirta ururada xag jirka ah ee Al-Shabaab iyo Daesh oo ku dhuumaaleysta buuraha Golis iyo Calmadow. Cabdilaahi Bakayle, Ariel TV, Garowe.